Asalaamu calaykum. Kusoo dhawow Qurac Tech. Maanta waxaan rabaa inaan idin tusiyo xasuusta la dhahayo EEPROM sida wax loogu xareysto. Waxaan isticmaalaynaa Arduino Nano, midkaas oo aan isku dayayno inaan number intaan tirino kadib ku xareyno numberkaas. Waxaan sameynaynaa waxa waaye si aan xasuusta EEPROM-ka u testeynina waxa ku xareynaya in kaleeto. Arduino Nano-gaana inta uga jeedin ayaa waxaan taabanaynaa reset. Reset markaan taabano waxay la dhigmataa isagoo powerka laga siibay. Marka numberkii hore aan ku shubanay haddii weli hore uga sii wado macnaheedu waxa waaye xasuustii way noo shaqaysay. Marka waxaan sameynaa marka hore meeshaan kore aad u jeedin ayaan waxaan ku qorayaa code-kii dhan oo dhammaystiran kadib aan waxaan raxayaa. Okay, hadda marka code-ka hadda waa dhamaynay. Waxa aan sameynaa ugu horeysa waxa waaye kanna meesha ka saaro saan xasuusta marka horeeto waanaan u isticmaalin. Kadib ayaan fiirinaynaa xasuusta muhiimkeeda. Haddaan inii sharaxo waxa aan sameeyey. Kow waxaan soo gelinayaa library-gan la dhahayo EEPROM kaasoo noo fududeynaya inaan EEPROM-ka wax ku qorno. Meeshaan waxaan samaystay variable oo sheegaya xasuusta booska xasuusta oo aan wax ku shubanayo. Hadda waxaan yidhahdaa booska labaad xasuusta EEPROM-ka la dhahayo waxay leedahay slot-yaal badan ay leedahay mase waxay leedahay boosas badan wax looga shubayo. Marka inaad sheegtid waaye sida qaanadaha guriga camal qaanada wax ku shubatay. Waxaan kaloo sameeyey variable dhahay counter midkaan oo kor u tirinayo. Waxaan kaloo sameeyey meeshaan serial begin aan sameeyey kanoo meesha hoose ka arki karno waxaa ka imaanaya Arduino-ga. Mar walba oo aan taabano reset-ka waxaad samaysaa waxaad noo soo qortaa restart noo soo qor macnaheedu waxa saan u ogaan inuu soo bilowday. Markii restart lagu sameeyo intuu imaanaya waxaanu dhammaynayaa kadib halkaan uu dib ugu noqonaya. Midda kale aan waxa waaye waxaan yidhi kowda hore waxaad ka bilowdaa inaad 1 second mase 1 millisecond tid kadib waxaan soo qoraynaa counter wuxuu la mid yahay kadibna counterka waxa uu yahay counterka ayaan halku daraynaa build aan dhahaynaa success u dhahay macnaheedu waxa qalad ma jiro. Waxaan dhahaynaa upload macnaheeduna ay tahay ku shub Arduino-ga code-kan sameynay uu ku shubay. Kadib waxaan fiirinaynaa serial print waxa la dhahayo meeshaan. Bas waqtiga wuxuu ka bilaabay restart inuu soo qoro. Wuxuu sameeyey counterkii wuxuu la mid yahay 1 2 3 kor u tirinaya. Marka haddii aan hadda Arduino-gan meeshaan imaado oo aan dhaho restart ku samee waxa dhacay waxa waaye kadib mar kale haddana muujeedada meeshaan wuxuu soo qorayaa restart uu soo qoro meeshaan kore restart noo soo qoray kabacdi uu soo bilaabay. Mar kale aan taabanaya sideeduu marayay marka hadda wuxuu sameeyay markuu restart soo qoro. Marka hadda waxaan rabnaa in EEPROM-ka fiirino uu shaqeynayo. Mar walba aan restart dhaho waxaan leeyahay xasuusta booskan ku jirta oo booskan 2 ah ku jirta waxaan noogu xareysaa variable-kan la dhahayo counter. Loop markaan nimaano waxaan leenahay sidii hore tala waaye halka waxa aan ka bedelayna waxa waaye markuu counterka hal ku daro ayuu wuxuu sameynayaa wuxuu ku xareynayaa xasuustii booskii hore counterka cusub. Marka asagana haddaan fiirino cusub wakaas uu soo bilaabay restart 1 2 3. Hadda waxaan iranay markaan restart taabano numberka hadduu marayay ka soo 10 ku gaaro hore inuu kasii wado waayo. Restart uu sameeyey muddo 11 12 hore saaday. haddana markaan taabanaynaa 17 marayay restart aan taabtay 18 hore uga sii wadaya. taas marka waxay noo sheegaysaa EEPROM-kan inuu noo xareynayo numberkii oo macnaheedu ay tahayna markii chipkan powerka laga saaro numberka booskii hore uga sii wadaya. Marka reset-kan aan taabanayo waxay u dhigmataa anoo powerka ka siibay ma u baahna marka powerka inaan ka siibo laakiin restart-kan aan taabanaya effective isku midkii waaye. marka wakaasa intaas rabin in la qaybsado Ramadan Kariim. Assalaamu calaykum.